gelaynaa barnaamij kale oo xareed. Barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan ka sheekeysano arrimaha ku saabsan horumarinta dhaqaalaha iyo maareynta maaliyadda siyaasadihii loo dejiyey. qaybta dhaqaalaha ayaan fiirinayna xog saarayna marka lacagihii kala duwanaa iyo canshuurihii kala duwanaa iyo mushaaraadkii kala duwanaa iyo sidii dowladdii Professor Africa ka sheekeeyo aqoonta ku yarayd waxaan rabaa professorada kale inay aragti naga siiyaan sidii dowladdii ay u manage garaysay mushkiladaas. bankiga dhexe markasta dowladda leh markii hore markay dowladdu la wareegtay baanankii hore baananka kaliya maahane waxay mainly la wareegtay wixii dhaqaalaha taabanay ee la wareegtay dowladdu si saxayna ula wareegto qalad ma ahayn. way laba sharci kala lahaayeen tayaariga dhinaca wuxuu ka dhigay meel cariirsan oo la kontrolo lacagaha baxaya iyo kulli way waxa iska meel xor oo qofku wuxuu rabo la siiyo illa bidayo bashda loo geeyo anagoo laba dhinac. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan gelaynaa barnaamij kale oo xareed. barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan ka sheekeysano arrimaha ku saabsan horumarinta dhaqaalaha iyo maareynta maaliyadda siyaasadihii loo dejiyey. waxaa nasiib weyn oo ah in barnaamijkan ay nagala soo qayb galeen oo ay khibradooda iyo waayo-aragnimmadooda ay u gudbi doonaan jiilka soo socda haddii ilaahay yidhaahdo. dad aada magac u leh dhaqaalaha iyo maaliyadda Soomaaliyeed magac weyn ku leh muddo dheerna ka howlanaa bal inaanu ka faa'iidaysano waayo-aragnimadooda. waxaa ila jooga halkan aan midigtay aan ka bilaabayaa Professor Abdullaahi Sheekh Cali Alolow oo ah macallin jaamacadaha ka soo dhigay meelo badan kasoo shaqeeyey wasaaradda beeraha kasoo shaqeeyey wasaaradda maaliyadda kasoo shaqeeyey qorsheynta kasoo shaqeeyey haddana ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka. waxaa kaloo nala jooga guddoomiyaha bangiga horumarinta Soomaaliyeed mudane Abdullaahi Axmed Afar oo isagana waayo-aragnimadiisa ay aada u dheer tahay muddo kusoo howlanaa tan iyo waqtigii la bilaabay aasaaska loo dhigayay dowladnimada Soomaaliyeed. waxaa uu nagu kaalmeyn doonaa inuu na fahamsiiyo dariiqii dheeraa oo siyaasadaha horumarinta dhaqaalaha iyo maaliyadda Soomaaliyeed insha Allah. waxaa kaloo isna nala jooga Professor Yaxya Sheekh Cali oo Professor Sheekh Caamir oo ayaa nala jooga. Yaxya Sheekh Caamir baa nala jooga oo isagana ahaa ardadii ka qalin jebisay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ka qalin jebisay oo macallin noqday ilaa haddana ku howlan arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda ku howlan macallinna ka ah jaamacado kala duwan ee dalka gudihiisa. waxaa kaloo wada dacdiyin doonaa barnaamijka kan Professor Cabdicasiis Axmed Ibraahim oo isagana doctorku waa nin dhaqaalaha soo bartay laga soo bilaabo bachelorkiisa ilaa iyo PhD-giisa ku sameeyey dhaqaalaha ku sameeyey. wuxuuna hadda macallin ka yahay jaamacadda Soomaaliya xarunteeda ay tahay magaalada Muqdisho ay tahay. waxaan soo dhawaada waxaan u gelaynaa doodeena anagoo rajeynayna in aada uga faa'iidaysan doonaan jiilasha haddeertan joogo isla jooga oo aan nasiibka u helin in ay ama buug ka akhristaan taariikhdii hore wixii lasoo maray ama ayan fursad u helin inay aada ula kulmaan dadka khibradaha Soomaaliyeed. waxaan rabi lahaa marka inaan ku bilaabo labada waayo-arag ee nala jooga bal inay nooga sheekeeyaan bilowgii horeeto waxbarashadoodii sidii ay ku bilaabatay iyo sidii ay ahayd. waxaan rajeynayaa inay qayb ka ahaayeen aqoon-yahanadii Soomaaliyeed ee xirfadlayaashii Soomaaliyeed loo tababaray inay dowladda Soomaaliyeed ay gacanta ku qabtaan. waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo Professor
loo inaan ku bilaabo kadibna aan u gudbo gudoomiye afar xanuun waa mahadsantahay professor Baafo horta aadan kugu mahadinahay inaad maanta noogu yeerteen doodan anugu waxaan wax ku bartay ilaa jaamacadda qaybta koowaad magaalada Muqdisho dugsigii la dhigo hal dugsi keliya ku yaala Muqdisho oo Scuola Media Inferiore ayaa la dhihi jiray waa dugsiga dhexe oo ilaa maanta loo yaqaan dugsiga dhexe nasiib wanaag waxaan u helay fursad ninkii agaasimaha ka ahaan jiray maamulaha ka ahaa oo iskuulkaas dhagaha naga garaaci jiray in macallinkii lagu magacaabo iskuulka laftiisa Axmed Cabdalla ayuu ahaa safiirka ka ahaa Sacuudiga ahaa ninka oo ahaa ninka idaacadda raadiyo Muqdishona ka akhrin jiray afka Carabiga idaacadda ka akhrin jiray ahaa koonfurta waxaa ku yaal hal dugsi sare oo keliya ma aynan qabin dugsi sare waxaa la dhihi jiray Scuola Media Superiore waxaan ku dhigtay meesha maanta ay jaamacadda ay ka askuntay lafteeda ayaa lagu dhigi jiray halkaasaan uga baxay nasiib wanaag waxaanu la kulannay markii ciidamada qalabka sida ay la wareegeen awduunka ay la wareegeen xukunka anugu waxaan shaqo bilaabay 1968 waxaan ka bilaabay meesha la yiraahdo wakaaladda badbaadada shaqaalaha meesha la yiraahdo maya istaghfar waxaa ka horeysay maxkamadda oo aan ka noqday kaaliye maxkamadeed aabahay baa qaadi ahaa ma jeclaysanin inaan ka shaqeeyo maxkamad waa iska furfuray waxaan ku biiray wakaaladii la dhihi jiray wakaaladda badbaadada shaqaalaha wasaaradii beeraha ka soo shaqeysay intii markaan anigu xagga ka soo noqday waxaan tegay oo intaanan bixin ka hore jaamacaddan oo dhiganayo waxaa lagu wareejiyay qorsheynta qaranka waxaa lagu tegay Abdullahi Axmed waxaa agaasimay soo noqday agaasimaha qorsheynta ahaa marka maadaama schoolmate-na wada classmates isaga way xoogay inaan la shaqeeyo xilkiina anigu iga tegay scholarship ka aaday waxaa kumada xoogaa dhaxal wareejin halkaa ka bilaabatay wasaaradii waxaa la maya waxaa iiga xigtay in la ii soo bedelo dowladda hoose ku-xigeenka duqa magaalada koowaadan ahaa wadooyin badan oo magaalada ku yaala buwaagaas ayaa la dhisay dad badan hadday xusuustaan basas la dhihi jiray aburaas 32 ah ayaa talyaaniga ka keenay qashin qaadka maxaa la nadwaya fara badan aan keenay geedkan qashinka lagu shubo runtii magaaladu waa fidaysa waana ballaaranaysa waana fiicnay kadibna dee waxaa mar labaad dib aan ugu noqday qorsheyntii qaranka Cabdullaahi dowladdu ka soo noqday waxaan u malaynayaa inuu aaday Iraq Soma meelahaasaan u malaynaya inay ahay waa laga soo bedelay bankiga intaan xusuusan karo ilaa yoomana aada marka dambe dee qorshiga qaranka kulli waa ka wada qayb wasaaradda maaliyaadka noqotay waxaa la ii soo bedelay wasaaradda beeraha halkaasuu muddo agaasimo kutusibaan ahaa kadibna waxaan xaaladaaba isfurtay wadanku wuxuu 69 waa isbedelaa ka dhacay xagga ciidamada ayaa ka dhacay marka halkaas kadibna dee dagaaladii sokeeye ayaa lagu dhacay wixii ka dambeeyeen gudoomiye muxuu ahaa dadku waxay hadda u jeedaan jaamacado tiro badan oo jira waxaa lala xabigaa dowladnimadii yani wasaaradda walba xabigay ku jirtaa waqtiyadii adinka kusoo biirteen bal ka waran barashadaadii iyo hawlihii ugu horreeyay hadda aniga shaqada waxaan bilaabay 65 marka waxaa ka bilaabay
bankiga dhexe ee Soomaaliya meesha hadda la yidhaahdo oo la dhihi jiray Banka Nationale Soomaal waagaas imtixaanada ugu culus waxaa lagu geli jiray intermediate ama primary level inta lagu geli jiray bachelorka waxaa ahay oo ugu sarreeya oo la qaato primary beredka markaas secondary qofku markuu gaaro wuxuu ahaa PhD camal waxaa hadda loo yaqaano maba la arkay waa yaraaya soo u sheegay professor Qalluuc uu sheegay waqtigaas dowladdii lixdanka oo adiga lixdan ilaa ama kasoo bilaababa daakhligii 56 ma heno waxuu talyaaniga ku wareejiyey maamulkii dowladnimada dadka xoogaa yaroo af talyaani ku hadli jiray kan ugu badan oo 3 sano wax dhigtay luqad yaqaan iskuul u furo la yiraahdo dugsiga tababarka teeb garaacada oo buray ma yahay DCL directors wax kale ma jirin dadkaas lixdankii kuwa boolis ah booyaal ahaayeen way waxa way ku ka shaqeeyay guriga talyaaniga ka soo shaqeeyay oo talyaaniga xoogay garanayeen nooc kasta oo ayaga la soo shaqeeyay waa aqoon ma jirinba kuwa talyaaniga hore askar ahaayo xoogay talyaaniga soo bartay iyo karaaniyaan ay noqdaan iyo waxaas horta dalka lagu wareejiyay maamulkiisa waa loogu tala aqoon ma jirin lixdankii isla ayagii haddana qabtay waxaa bilowday lixdankii in dad kama kontomayadii dad loo qaado waxbarasho macallimiin qaar la geeyo talyaaniga qaar la geeyo dalalka ay kamid tahay Switzerland oo weliba qaybta talyaaniga oo Switzerland la geeyo oo ay ka noqdaan macallimiin dugsiyada dhexe iyo inta badan primary-ga macallimiinta ugu muhiimsan oo wax loo dhigi jiray waxay ahaayeen talyaani waa yaraayeen macallimiinta waxaa jiray kuwa baqtaan maaragtay director-ka ah iskuulaadka headmaster-ka ah laakiin macallimiinta wax dhigta ama talyaaniga dhigaayo ama xisaabaadka dhigaayo waxay u badnaayeen talyaani marka ani bankiga la qorayay 65 waxaa ka ahay director general nin talyaani dowladaan ahayn dowladaan ahayn all departments sida waxyo dhan waxaa jooga talyaani habas ka shaqeynayna tababarada la isku daray talyaani kaliya marka dambe way ahaayo oo xaata ku jiray kuwa jarmal ah aniga waxaa ka shaqeyn jiray oo ka ahaa karaani waxaa joogay directorka oo ahaa jarmal waa UN-ka keenay dadkaas waxay dhidibada u aaseen qaab dowladnimo aqoontooda inta ay leekayd dowladda Soomaaliyeed waxay la ekaataba inay taagaan mabal dadka noocaas mabal aqoontooda inta ay leektahay mabal laga sugi karin wax aad mataqaanaa fikir u waaweyn oo dalkuna uu dhaqaalihiisa u ahay bilow bidaa'i camal dhaqaalaha dalka dhan wuxuu ahay maaragtay wax soo saar kugu yaraa dhoofis kugu yaraay marka dadkuna waa yaraay waxaan xusuustaa markaas xamar waxaa deganay 1960 la soo saaray 30,000 xamar meesha ugu dad badan dalka waay saasay ku bilaabatay dowladnimada ilaa 60kii waa la soo waday kacaankii militariga uu hogaaminayay maxamed siyaad barre waxaa la galay weji kale face kale la galay oo loo bixiyey dowlad hanti wadaagga musuqmaasuq la dirir iyo wax mataqaan markaa loo bixiyey weli aan wax ka shaqeynaya bankiga markaas 70 iyo anoo jaamacadda marka Cabdullaah uu sheegayo jaamacadda aan ka baxayno asaguna wuxuu ka shaqeeyaa kaas qayb la dhihi jiray oo qaybta oo aymiska shaqaalaha la dhihi jiray ana waxaan ka shaqeeyaa bankiga dhexe
marka waxbarashadaynu waagaas dadku dhan wuxuu ahay on job training waxaa la yidhahdo waana shaqaynaynay jaamacad waa dhiganayna waa jaamacad waxaa u bedelay waxaa la dhihi jiray institute oo university camal ah ayaa marka hore gacaanka u bedelay aqoontu saasay ahayd bilowgaas ahayd bidaa'i ay ahayd markaan jaamacadda ka baxnay annaga anoo ka baxnay jaamacadda oo dadka ugu horreey ahayn kalaaragaan ahayna weli karaaniyaan ahayn idinkoo jaamacad ka soo baxay weli karaaniyaal ahayd bankiga waxaa ka karaaniyaal ka ahayd maxaa markii uu la wareegi weyday jooyinka wax kasta waxaa la gartay oo waagaa la garanayay inay u baahan tahay experience waayo aragnimo 73 dhammaadkeedii ayaa waxaa laga soo bedelay waxaa la geli jiray xalala galnay xalala markii la galo dadka waa la kala bedelay laba si loo bedelay kuwa daacad loo bedelo meel ku habooyay la geeyo iyo kuwii madaxda ay la joogeen iska dhaqaajinayeen si kastaba ha noqoto aniga waxaa lay bedelay balaaninka marka waxaan ka shaqaynayay 8 years ka shaqaynayay central bank waxaa la yidhi sababta wax kasta ahaato maamulkii jiray marka waxbaa isbedelay intaasoo sawirshada sano agaasimihii guud Soomaaliya la keenay taariikh waa baxay markii uu horeysay adiga waxaa la sometimes 68 camal 69 70ski cabdi aadan markaas waa jooga annagaa tagayn asaa jooga cabdi aadan sheekh cabdi waa joogay oo wuxuu ahay president laakiin maamulka waxaa haystay nin tayaari oo la dhihi jiray Francesco Palamigi Crispi marka qofka imtixaankiisa suu yahay aan lagu kala bedelayo waaxyaha kii xisaabta ku fiicnay kii luqada ku fiicnay markii baad imtixaanka aan ka soo baxnay intermediate-ka anaga saas wax ku soo baranay marka gudoomiyihii horreeyay Soomaaliyeed door noqotay early 60s marka imaanay waa joogay Sheekh Cabdi joogay gudoomiyaha laakiin president-ka waay laakiin muddo waxaa sii joogay agaasimo guud oo ah ajnabi gaar ahaan Talyaani sababtuna waxay ahayd bankiga dhexe wuxuu ku xirnay bankiga dhexe Talyaaniga ayaa baritaan jiray sababta kaalmay jiray bankiga dhexe aan barbaadi jiray inuu barbaariyo 73 dhammaadkeeda waxaa lii bedelay aniga marka xalala aan ka soo baxo soo gaardinay oo askar aan soo baranay waxaa laga soo bedelay qorsheynta oo markaasi hay-ad ah waxaa waaye hay-ad waa wasaarad maaha waxaa dhihi jiray agaasinka guud ee qorsheynta ayaa la soo bedelay raggii joogayaad ka xasuusataa markaas waxaa markaa tagay waxaa jooga dhihi jiray Xuseen Bood laakiin waxaa jooga oo markaas iyaguna markaa laga bedelay silaayi waa ka horeeyaa bas markaasaa laga bedelay oo laga dhigay wasiiro qorsheyntaan joogay 6 bilood markaan joogay oo aan xaggana kasoo shaqaynayay way argaan ahay shaqadiina shaqo dhaqaalayahan inay noqoto kaleer ka soo baxay weli waxaan ahay laakiin meesha waxaa la yidhahdaa aqoon-yahan laakiin xagga waxaan ahay karaan mishinada ku shaqeeyaan ahay nadaamaa jiray agaasimihii aan la shaqaynayaa la bedelay nin la dhihi jiray aadan cabdi xuseen oo laga dhigay maariye guud oo warshada la dhihi jiray inkas oo samayn jirtay kartoonada jamaam dadkaa la fiirfiiriyey anaa kusoo baxay agaasimaha noqday markii booska agaasimaha waxaa qorshada noqday tiimkan markay imaanayaan oo tiim badan ay ahaayeen oo cabdullahi uu ka mid yahay oo dad badan ay ahaayeen waa loo oriyoobay kulli hadda meesha jooga agaasima waxaasaan ah cabdullahi waa wada shaqaynay aniga waxaan aaday fellowship oo Holland aan soo sameeyay master oo directorki ah cabdullahi ku wareejiyay agaasimannimadii as active wala jooga waaxda joogay saasa ku aaday Holland aniga master aan soo sameeyay waa soo laabtay
kabacdi markaan soo laabtay qorsheyntaan dib u emiday cabdullaahi wuxuu noqday vice mayor ayuu ka noqday ku-xigeenka duqa koowaad oo noqday waaxdii ballaaritaan mar labaad haddana madax ka noqday isla markaana waxaa laygu magacaabay xogeyaha guddiga dhaqaalaha qaranka wuxuu ka soo maray guddiga dhaqaalaha waxaa jeelgarin jiray maxamed siyaad abu xuseen kulmiye aa dhaqaalin jiray isagana waxaa jira mashaariicdii كل وزارة نقالها جوجي وحاول كهاي ويقول كهاي تيم كهاي لاتريال كيميكو سيلايو جامع ربيل الهجري هو هاي رهن رياض سمتر ليس سمتر حاطط الكم النورة لكن ريال هو رياض ويناين شد سنة أخيرين أكو جوبنا هذا guddiga waxay ahaayeen dadka oo dabadooda laakiin waxaa lahayd secretary mashaariicda iyo qorshaha dhaqaalaha iyo waxa la xiriira horumarinta dhaqaalaha qorsheynta kusoo diyaar maadaama aan agaasimo ahay dekreet saasaa jirtay oo agaasimahaas inuu xogeyn ka noqdo anaa markaas ahayaa isla markaana waxaa jira mashaariicdii horumarineed oo dhan markii lagu soo diyaariyo qorsheynta systemka jira waxuu ahay system oo ah hanti wadaag مشروع كسر ذلك لقى فلونايو وزيارات كسر فلونيس اللي جري وزارتها سيكتورز أما قيمة نقالة هاي سيكتور بيرها وقالة سيكتور كاجا هذا مشروع ربان وحي سوق قرايان بنانك كرايان مشروع كلي مشروع وين نوع كسر هذا بنانك مركز لكانوا ولا غلا شرايك وحال لور هذه باش وكجيلي كارو هو ربنا نقالة way ka mid tahay waxa la raadinayo waxa ka mid ah ma loo haayaa horta maalgelin wasiiso akala sustainable ma yahay mashruucan wuxuu ku shaqeynayaa ma loo haayaa raw material haduu warshad yahay haduu etc guddiga ku soo dhawaanayna waxaan soo geli doonaa su'aalaha yaxye wuxuu ka mid yahay mas'uuliyaadka wuxuu ka mid yahay sideetaniyadii dadkii jaamacadda soo galayo ardada ka ahaa kadibna macalinka ka noqday intaa joognay waa jooga asaguna intaa joognay waa joogay ma yaranig labadan jaamacadda ani macalin yahay aniga ninkaas نسيب جامعتي حتى waxbarashada ana baadiya ku bilaabay meel banaan beledheera awli wuxuu ka dhisay aqal aabay u soo dejiyey gabadhu ku dalay inta magaala ka rabaa qofku guriga ku dhashay oo dhan markaan dhashay ka sameeyey dugsi quraan ka soo laga soo maray markaas hal sano kadib soo saro ka dhisay معلمين مشاور وقري سيوا سكول كاس مركز الكعان كوحو بحسوا الشيران أو جلو مرعب تدرس المركز جري مركز شهادة دربني تدرس المركز جري سكول سرقني دوسي سرق سرق هذا براكي عايش أو كده سو أصول في الدريرة أنا مدري هذا صوب عليه دوسي ده حمر على كلامه حرب على دوسي ده حمر دوسي عقبي دوسي سنة الولادة واتقانا والد كده بجوه ودبعه حاول ما دوسي انت مرة كوليج من اللي تمشي بالجوهر وقت مسكت ورقة معلومات المراكب عايرة ماشي حمت يجي فاقيريس سيما كان صورة ليستاني جامعات الموطن بريد جامعات مكان ماستر كاليفورنيا ستيت يونيفرسيتي كانت بي ام تي وحاجات يعني كاليفورنيا حاجة كده كاليفورنيا ستيت يونيفرسيتي كده ماستر وحاجات يعني وضلات بالبروسيدور وقت جاس بيتي دكتور عالم كله بيصير مركز أقوم بروح السعودية يوالدها الإخوان واليمن وحكي ما ناس ترى حوالي وتلاقي سمو ده دولتنا الشهادات جامعات مكان صوب عشرين تقريبا أنا مدير شهادتي والشهادات دولتنا اختي كعانة تلاقي بسنة واللي سوري دمالي ده اللي قرر ما هيجي 6 بالأنا جول
agaasimo waxaa taagan waa imida maxaa ku mutaystaan weydii su-aasha ugu horeysa dadkii soo horey 10 sano joogay meesha ka shaqeynaya aniga hadda amidi shaqada soo gelina sidaan ku mutaystay dad kale oo lagula faaqnaa aanaysa kii dowladda ganacsiga meesha qaar kama soo socdaan sideetii saddexda amar oo malaa ka telimaadinta horta shaqadooda rasmi markaas maaligaa ka tega ugu dambaysa shaqooyin dadban waa qabto board of central bank waa noqday dowladda wasiirka ka ahay wasiirka ganacsiga ka ahay taliyaha ra-iisul wasaaraha laakiin wuxuu nibbiya ka socda markaas shaqada dowladeed maahay hataa kadib waa taliya madaxweynaha noqday laakiin difida ka socda kuwa dowladda ay toos u qaadato marka ma noqon jaamacado badan oo casharo ka bixiyaa gaba kansas university america ku taatan oo open university malaysia ilaa hadda jaamacadan life science oo norway ilaa hadda external examiner oo ahay london school of economics oo caanah sanadka hadda waa ku shaqeynaya overseas consultants marka waxaa ku dadaali jiray nolosheeda hal iskuul kale weligeed waliba laba saddex isku dacwooday hal shaqa inta qabta waa yareen waa inaa laba saddex meel buuxa consultants iyo advisor iyo lecturer dhowr shaqa isku qaban kartaa ay adapted marka atoo meesha ku baranaya luqadaha carabiga ingiriiska talyaaniga ruushka jarmalka waxbaa ka barta shahaadooyinaan ka haysta cilmanimadii saddex baranaya luqadaha oo iska dadaal iyo beledkii qofku haygan ma jirto inaa barto khatara wata cida islaan hawliyar iyo hamburgada wax ka cunaan jidka kuwo kale waxyaalaha la seexata marka inaa xataa baadina barto qof waxaana ku qaldafay aa ku saxantaa ma jiro marka badan marka hay-adahaas aan u shaqeynayo barbaarinteydii shaqana nimanka wax ka qaatay qaybta ka qaata aqoo fadhi dhaqaalaha wadanka waqtiga kacaanka badankaas aan kusoo maana waxaan ku rabaa in doctor ismaaciil professor cabdicasiis inuu maxaan ku rahdaa su-aalo badan u qabaa waa waxa aad usoo joogteen adigana aad qayb kasoo joogtay ayaa wax naga warsan doonaa profesorka iyo profesorada iyo macallimiinta ku dhaafsan yihiin waxaan rabnaa maadaama ay xareeb tahay 60-kan kasoo bilaabeen 60-kii waxaa midoobay labadii gobol waqooyi koonfur laba luqadood oo kala duwan talyaani iyo ingiriis laba lacagood oo kala duwan waqooyigu ay ka socotay east african shipping halkan oo soomalo ay ka socoto nidaamka mushaaraadka oo kala duwan canshuurihii oo kala duwan marka qaybta dhaqaalaha ayaan fiirinayna xog saarayna marka lacagihii kala duwanaa iyo canshuurihii kala duwanaa iyo mushaaraadkii kala duwanaa iyo sidii dowladdii professor africa ka sheekeeyey oo aqoonta ay ku yarayd waxaan rabaa professorada kale inay aragti naga siiyaan sidii dowladdii ay u manage garaysay mushkiladaas sidee loo maareeyey arrintaas waa mahadsan tahay waa run waa 60-kii waxay ahayd Soomaaliya laba system oo kala duwan aan shaqaba isku lahayn ayaa dowladdii Soomaaliyeed ka dhalatay waa waqooyiga iyo koonfurta hadda loo yaqaan Somaliland iyo koonfurta ahayd waa run xaggaa waxaa ka socday lacagtii rubi iyo British colony waxaasaa ka socday waxaa aad igaga badiyo professor afrax oo bankiga ka shaqeynaya waxaa aad u dhib badnaa xataa luqadii isku luqad ma ahayn qolana waxay ku shaqeynayeen ingiriiska qolana waxay ku shaqeynayeen talyaaniga xataa waxaa adkayd in laba xafiis mid waqooyi ku yaal mid koonfur ku yaal in la isu turjubaano ay noqoto ayaa dhibaatadaas ka jirtay dhaqaalahana dee cimiladay ku kala duwan yihiin waddanka dhinaca koonfurtu waxay lahayd dhaqaalo badan ay lahayd waa beerihii xoolo fara badan waana ka weyn tahay waqooyiga aaday uga weyneyd marka maamulkaasaa culays badnaa marka si la isugu keeno waqti ay qaadatay oo la isfahamsiiyo xataa waxbarashada iskuulaadka qolana englishkay ku socotay qolana talyaaniga ayay ku socotay mar dambe 70-meeyadii ku dhow ayaa la bilaabay marka in amalgameesh in la isku daro oo afufkii
oo xataa iskuulaadka koonfurta lagu soo daro in luqadda ingilishka waa qaadan jiray laakiinse daciif baa ahayd waagaa koonfurta daciifuu ku ahaa talyaaniga u xoog badnaa carabiga wuu fiicnaa waxaa macallimiin waxaa dhigaysay masaari ah ayaa dhigaysay badankeed waxaan u malaynayaa kooxdeenna aniga iyo afrax iyo dadkii ka dambeeya carabida dad badanaa waxaa isla talyaaniga wax ku barteen carabigeenu xoog buu lahaa carabiga marka it took time waqtiay qaadatay in labada dhinac la isu geeyo uu bankiga dhexe gaaro heer uu daabici karo shilinka soomaaliga ee ka dhexeeya labada dhinac arrintaa waxaan u dhaafi lahaa professor afrax oo iga khabiirsan dowladdii lixdanka oo nuuca aad tilmaamayna ahayd waxay iska ilaalisay in isku dhac oo ka yimaado inta wax la mideeye inta la raadiyo ha la mideeyo wax sida mushaaraadka darajooyinka si kastay ahaataba dadku waxay lahaayeen iimaan soomaalidu iimaanay lahayd laba qof oo isku xafiis ka shaqaynaysa ayaa midna wuxuu qaadanaya siyeed bool midna 250 shilin soomaali ka qaata 250 kale intiisa u iimaansanayo ka qaata siyeedda boqolna qaylaad iyo waxbaa jira uu yaqaan mogta waqooyi ka yimid waxbaa jira oo inta aan laga aqaanin markaas marka arrintaas ummaddu iyo dadku iimaan u lahaa waxyaabaha caawiyey dowladdu waxay ahaaday waa ka mushaaraad badnaayeen waxaa xataa laga dhigaa maarata nuqad wax lagu qoslo waxaa laga dhigaa laba xaaso kala qabaan reer waqooyi iyo kala iyo koonfur ayaa isugu tegay kawaanka waxaa horeysay mid oo reer koonfurta waxay tiri rubac hilba si rubac hilba rubac ay soo galatay tii kale agtaar mogtahay waa arjaax sii tarjaax sii tii waxay tiri naama bisad baad siinaysaa waxan bisad baad siinaysaa wax cuni kara baa taas dadku iimaan u lahay dhaqanku waa kala duwanaa xataa naftiisa aniga waxaa lay bedelay waqooyi 1971 kacaanka markuu bilaabay inuu wax mideeyo isdhex geliyo shaqaalaha inta ka horeysay dowladdii rayidka ahayd way iska ilaalisay maxaa jira nooc oo mataqaanaa dimuqraasiya jacbur ah ayaa jiray waa dimuqraasi ahayn oo bilbidaaya ayaa jiray si dhab la isugu bedelayo la isdhex gelinayo si dhab ah si mataqaanaa maaragtay حتى بالتري والله بدي مركز واجري جري لكن مركز هذا اللي بدي شغاله هريت كانت حق لي انا رقيسه اللي بدل انا بنك شغال مركز اللي بدلها وحال ربا الا مدايو wax kan loo yaqaano exchange controlka ama sarifka lacagaha qalaad ama gaar ahaan dhinaca waxa la serviceka oo aan ahayn badeecal dhoofay la soo aan ahayn oo dadka baxayo turismaha lacagta la qaadanayo lacagta oo kaashka ah waqooyi laba sharci kala lahaayeen tayaariga dhinacan wuxuu ka dhigay meel cariirsan oo la kontrolo lacagaha baxaya iyo kulli waqooyi waxay iska meel xor oo qofku wuxuu rabo la siiyo ila bidayo bashda loo geeyay anagoo laba dhina 71 warsaas u kala qaybsanay maamulku laakiin waxaa mideeyey labada gobol oo dowlad aan cidda weydiinayn election iyo doorasho iyo beriya dhacaysa iyo xisbi aan ku xirnayn dowladda kacaan ka midaysa horta maamulkaan mushaaraadkina waa la mideeyey wax kastana waa la mideeyey oo waxay noqotay qaado ama ka tag Victor Limit mushaarka waxaad nooga sheekeyseen sidii dhibkii laga soo maray in la mideeyo systemkii iyadoo curdankii leeyahay ayaa 69kii waxaa yimiday kacaankii dabcan kacaanka tusan imaan dowladdaas curdanka sidaa sheegtay dimuqraadiyad iyo nidaamka dhaqaalaha kapitalistiga furfuran ay qaadatay laakiin hanti wadaagii markii uu yimiday wuxuu qaatay systemkii kacaanka hanti wadaag u qaatay ama socialistiga wax alla wixii private ahaa ee jiray ee gaar loo lahaa waa la qarameeyey
su-aasha laba ayay u dhacaysaa mid waxay ku saabsan tahay bangiga dhexe midna waxay ku saabsan tahay dhinaca horumarkii bulshada innovationkii dhaqaalaha dadka ay sameynayeen sidaan ogsoonaha bangiga dhexe wuxuu u shaqeeyaa bangiyada kale financiga iyo systemka hadda aad ka sheekeynaysay markii hantiwadaag la noqday oo bangiyada private-ka ah oo dhan meesha ay ka baxeen dowladdu leedahay bangiga dhexe shaqadiisa maxay kusoo boqortay dadkii maadaama hantidoodii la qarameeyey oo wixii dhan ay public sector ama hanti guud ay wada noqdeen miyaa la dhihi karin developmentkii iyo fikirkii iyo dadkii waxay sameynayeen horumarkii la sameynayay halkaas ku joogsaday may cabdullah in yaroo waxaan professor afrax inta u sheegay midaynta haddaan ku daro waa runtiis isagoo bankiga laga bedelay xamara waxaa loo bedelay meeshii la dhihi jiray hargeysa toddobaatameeyadii gacaanka runtii tallaabada uu qaaday midaynta ugu weyneed waxay ahayd in saraakiisha civil iyo military iyo booliis siday u yihiinba koonfur waqooyi koonfur waa la isdhexgeliyay dadka inay isdhexgalaan runtii professor afrax si runa u taabtay midaynta gobolada waqooyi iyo koonfur waxaa dhaliyey awoodna u isticmaalay waxay ahayd dowladdii gacaanka ayaa keentay marka dambena gaartay xataa luqadihii englishkii iyo talyaanigii iyo wixii dhan in laga saaro hadda maqasheenba af soomaali buu yimid marka dambe soomaaliyeed laakiin lagama tegin wixii waxbarashada hoose kusoo jiray oo systemkaa kusoo socday si oo reasonable oo macquul ah ayaa looga guurayay afafkan ajnabiga uu sameeyey taa intaas ooga bixi lahaa midayntana waataan kuu sheegahayo annagoo dhalinyar iya xabar iska joogo waxbaan ogeyno dhaga cadcad waqooyi aada waa wareeran waa garan waaye dadkii siday u hadlaayaan dhaqankii waxaad ba garanaysaa cayaal xamaraan ahayn oo aaday u adkeyd in si dhaqso ah la isu fahmo waxyaabahan kusoo kordhina berigaas waxay ahayd sportska allahu naxariis ismaan beenti ninkii xasuusta wuxuu ahaa regional education officerka haya waqooyiga dhan hay ahayd sportska waqooyiga inuu kaco waxaa sabab u ahaa ciidamadii dalka xoogga dalka soomaaliyeed weliba dhalinyarada saraakiisha meel la yidhaahdo mess officer iyo hargeysa club aan xasuustaa in uu ka kacay sportiga waqooyi oo dhan ayaan aada uga xasuustaa marka isdhexgalka halkaasuu ka bilowday arrimo bulshadeedu fara badanaa ka dhashay dhaqaalihiina isbedelkiisii dowladdaasaa keentay in la moodayso su-aasha hadda usoo laabto qaramayntii iyo saameynta ay ku yeelatay horumarka dhaqan dhaqaale ay ku yeelatay waxay la timid horta culays fara badan ayay la timiday wax kastana lama qaramayn waxyaaba la qaramay waxaa ugu weynaay warshadihii inta badan ajaanibta ay lahaayeen iyo dhaqaale kasta ama ganacsi ama mataqaana maaragtay service kasta oo ku lahayd gaalo ama ahay waxyaabo waaweyn oo kaleo xataa soomaalida ay lahayd oo wax soo saarka ah sida ay qabaan mabaadi'da hanti wadaagga ugu shaqeynaa saasay ahaaday ayaa lala wareegay waxaa kamid ahay bankiyadii ugu horeeyey waxaa kamid ahay wax alla wixii baabuur keeni jiray iyo wixii la xiriiro spare parts waxaasa lagu daray shidaaladii iyo ganacsigooda iyo keenistooda iyo kulli lala wareegay wax alla wixii mataqaana maaragtay la dhihi karo waa strategic items ama mataqaana oo dalka u ahay lala wareegay marka horeba mataqaana maaragtay telecomka iyo telecom waxay ahaayeenba dowladda lahayd awaad walba marka horeba marka arrintaas culays badan la timiday ilaa la qarameeyo ka ganacsiga mataqaana maaragtay waxyaabihii dalka gudaha laga soo saarayo oo ay kamid tahay markii la aasaasay enche waxaa loo aasaasay waxa la keenayo horena way u jirtay laakiin sida gacaanku wuxuu u bedelay wax kastoo dibadda laga keenayo cuntaba ah ayadu inay keento
markii dambe waxaa loogu daray shaqo qariiq mid kaloo la yidhahdo wakaalad kaloo la yidhahdo ADC la yidhaahdo waa Agricultural Development Corporation ADC waa taqaan adiga ADC inay beerahana kaalmayso waxa alla wixii dalag ka soo baxan ay maqaasiin gelisay laga soo maana qorshuhu wuxuu ahay mar dambe waa la dhalaan rogay laakiin wuxuu ahaa markii dadku ay dalag badan soo saaraan inay ku khasaarin beeraleydu dowladda ka soo gadato la kaydiyo nin kale mataqaana waxba haystaan waa la dhacaa markii suuq ay ku yaraato gelin ama masooga ama wixii la soo saaray dib suuqa loo geliyo iyadoo aan mataqaana aan lacag badan lagu darin qorshaas u ahay labadii oday oo dhihi jira musuq iyo baasuqaa soo galay waa laba oday adduunay ku dheeleen madaxdii markaa loo dhiibay iyo waxbaa iska qasbay ilaa cid wax soo saarta la waaya markii dambe qaraa la cuni jira waxaan xusuustaa aniga 73 sometimes surplus Soomaaliya waxaan noqonay wax kasta oo gudaha laga qurmay singo galey everything name it surplus aan gaarnay oo aliyaabo waa la dhoofiyaa ilaa wala bal dhagal waay markii ADC la wareegtay laba sano ka bacdi badan baa ka baxal waay marka arintaasu ujeedada laga lahay oo loo qarameeyay faa'iido badan laga gaaray inkastoo dad badan ay saqireen anagu waxa ka shaqeynaa sektorka dhaqaalaha bogtay horumarin waxay u baahan tahay kayd dhaqaalo national saving ay u baahan tahay waxa la yidhahdo dalku inuu kayd sameeyo kaydka gudaha haddii la sameeyo waxaad dhihi kartaa marka external aid oo kaba waa raadsan kartaa marka wax alla wixii saving la sameynayo ganacsi laga sameynayo badi dowladda la wareegtay marka dowladda waxay heshay national saving oo development uga fikirto oo soo baxay in fact marka qorsheynta joognay waxaa loo qaybin jiray laba component investmentka oo la gelin lahaa mashaariicda national component oo investment ah iyo external component marka waxaa jira externalka not more than 20-30% inta badan mashaariic qaarkood kaydka gudaha dowladda kulli keedna dowladda aruurstay dowladda gacanta ku dhacaya magaalada waqtigii balaartay cabdullah uu sheegayo waaye mashaariicda la sameeyey waxaa ka mid a warshado fara badan waxaa ka mid a wadooyin fara badan oo qaarkood iska baaba'een ayaa ka mid a beero waaweyn aa la sameeyey oo gudoomiye goormaa la dhihi karaa siyaasadii horumarinta dhaqaalaha way soo kacday waxay soo gaartay waqti ay bilowday inay hoos u dhacdo waxyaabo fara badan ayaa waxay kalifeen marka wax badan ay meeshii marka hore ay tageen marka wax markii la dhiso waxay baahay sustainability inay ishay karto ayaa loo baahaya badi waxaa kharibay dad aan combat ahayn oo loyaltiga loo qaataa loo dhiibay ana waxaa waa dadkaanu waa waxaa rabnay samaynayaan maanaa dowladda mogtahay dowladda sare inta badan waa laakiin waxaa la rabaa loyal ah laakiin wax la qaban kara in la raadiyo mogta adiga waxaa leedahay siyaasaddii waa daciiftay siyaasaddii daciiftay saas ahay marka dhaqaalihii saameyn ku yeelatay dhaqaalihii saameyn ku yeelatay arrimo bulshada saameyn ku yeelatay baarakii shaqo ku yeelatay ilaa waxay gaartay aniga markii dambe waa laga bedelay qorsheynta mashaariica ka noqda madax waaweyn ka noqda madax oo qaar badan laga yaqaano mid la dhihi jiray Iraq Sooma la dhihi jiray beeraha xoolaha kalluumaysiga siyaasad qaladkaas hadda la sheegay siyaasad bay u socon weysay mashaariic waaweyn la bilaabay oo waxa la Juba Valley Development waxa la yiraahdo oo meel fiican maraya dagaaladii in laga sameeyo biyo xireen baar dheere koronto laga dhaliyo waxaan ku taal meel biyo dhacay leedahay koronto laga dhaliyo ilaa xamar timaado ilaa Kismaayo waa jiro gaarto gabagabay ahayd
كل هكذا بقول لك مريكا iyo World Bank iyo Islamic Development Bank iyo kullu waa lagu qayb galay dirashada waxa ay socotay years qaya la waqtigeedu hadi marka dhibaatooyinka ka hor yimiday saasay ahaayeen hal shay ka tan ku galay ayo markii gacanka u imaanayay bangiga dhaxal joogtay نعم أنا أقول لك صباح قال لي كنا كعارة جنيه system isbedelay أيه system kii dhaqaalihi furnaa ayaa laga soo guuray hanti wadaaga laga soo guuray نعم iyo sidii bangiga dhexe bal arrintaas nooga sheekay horta bankiga dhexe asagu ma ogtahay cabdullah gal bankiga dhexe markasta dowladda leh markii hore markay dowladdu la wareegtay baanankii hore baananka keliya maahane waxay mainly la wareegtay wixii dhaqaalaha taabanay ay la wareegtay dowladdu si saxayna ula wareegto khalad ma ahayn waxaad moodaa dadka qaarkii inay u fikiraan dad private in wax laga qaatay lagama qaadan siduu professorku sheegayay waxa waaye hay-ado iyo activities gaara oo strategic u ah siyaasadda hanti wadaagga markaa dowladda ay ku dhisan tahay ayay qaadatay waxaa ka mid ah in muuska ugu weyn maalan haddaad tiraa soomaaliya wax laga dhoofiyo dhoofka ayadaa la wareegtay oo shirkaday samaysatay meeshaasay ku ekaatay baanankii private-ka ah waa la wareegtay waxaa ka mid ah banka Boursaciid Greenlace Bank Banco di Roma Banco di Napoli wixii dhan wada ahaayeen dowladda kuwaas ay la wareegtay macal staffkoodii marka dambe waxay noqotay wata professorku sheega waxa markii la soo gaaray muddo la soo gaaray runtii muddadaasna wax weyn aan lagu qabtay siyaasaddaas ay dowladduna xoog lahayd waddo fiicanna ay ku socotay waxay bilowday marka siyaasaddii baa si kale waxay noqotay dhexday ka halowday runtii oo sidoo professorku qofka inta la soo socdo kacaanka intuu cusbaa oo dhan muddo badan wuxuu ku shaqeynahay technical people dadka aqoonta u leh waxaa gacanta ku haya ayaa waday kadib siyaasaddii waxay soo gashay dee si clear u sheegaan umaleyna loyalty noqotay yaa daacadii ah PhD kastoo wado aqoon kastoo walo you will be subject mutid marka taa waxay keentay in ay dhaqaalihii isu wareejiyo laba tan labaad waxa weeye dowladda lafteeda inay wadi kari weysay marka hay-adihii mar labaad dib u soo noqoto privatization dib ayna u celiso wixii halkaasay socotay ilaa marka dambe dee dhaqaaluhu meel xun u gaaray alaas waxaan ku dari lahaa waxaan ku dari taas waxaa lala wareegay cabdullah u sheegaya activitieski oo iyo ownershipka ay ajaanibtu lahaayeen ama ay lahaayeen dadka private oo mashaariic waaweyn ayaa lala wareegay ayagii laakiin shaqadii la qabanayay baananka waxay noqdeen commercial banks oo sidii kuwa private u shaqeeya dowladda iskale magaca dowladda dowladda iskale laakiin wuxuu shaqeeyaa sidii private shaqada ganacsiga lacagtooda tii wixii dhabaayay letter of credit banaanka loo furayay export la sameeyay all activities maarata oo qaba jireen baanankaas waagi hore sidii u qabanayaan ownershipka dowladda yeelatay bisa هذا هو دقالي باركون بحسب بيان معاشي صبيان ناشونال سيفيك قالوها يا رو بوليسي باش هو iyadoo ay jirto dowladda yaroo iska sagaal sano jirto isticmaalka dimuqraasiya iska jirto oo dhaqaalaha waddanka uu aad u badan yahay laakiin aan la isticmaalaa gacanka dhashay gacanka marka uu dhashay xoog ugu dhaqaaqo marka hore marka dad waxyaalaha markaa dibadda ka yimid waa joogeen dhaqaale aan la taabuli in laga faa'iidaysta ay tahay resources waa jireen xoog loogu dhaqaaqo intuu ku dhaco xalay badaba talaadeeda waa dharsataa cawdiyo xashina suuta baalantii waa masay shantii sano u horeysa jaamacada is orientation is warshado waday gacanka waa waashay laakiin mabda'a hadwadaanka wuxuu qabaa saa dadka u xakunti dhuuntooda qabo admis dhaqaalaha gacanta ku haya waxay noqotay wax kasta si lagu wareegayo dhuxul insaf loo galo dhuxusha qaada ku karsana saakin qof loo diro keligiis oo وكانوا معوني صناعين فرقيتوا دول ذاك الدولار سيستم كله روشك لو أظن من الروش يقولوا مش صاير ولا ليش وحاسبون من النقل كيسوا معلم والدول أفريقيا سو كوريا سو مسلمة
iyo shuuciyadoo markaas kapitalism tartan kula jirtay oo qolobo ay rabtay inay arday suubsato ardada shuuciyaddaa la qala marka xooliga kacaanka oo ku socda marka oo bilaabay hoos u soo dhacdo wixii lala wareego lagama fikirayn hay-addaana faa'iida ay keenayso waxaa laga fikiraya inta ay shaqaale iga qaadanayso waxaa laga yaabaa hotel xoroba iyo u baahan 30 qof inay ka shaqayso 200 qof aa lagu shaqaalaya faa'iida ka sugaysa warshada baastada waxay u baahan tahay 40 qof 300 guulada shaqo ka sii mid kale oo soo dira shaqo ka sii hay-addi marka kama sugaysid xisaab inay xisaabteeda isxirto faa'iida yar ay ku soo marka hay-ad kastoo dowladda in la kala shaqaale mushaara loo waayo waa ugu markii dambe waa dadku sacuudi iska aadeen oo lacabo qof shaqada dowladda dadku waa carray sharci waxaa la keenaa maba ruqsaysan kartid madaxweyne bisa kusoo ruqsan kara ana markaan ka tegaa dowladda qofba haddaan jaamicata wasaaradda shaqadan tegi waa ruqsada darbada maaliyadoosa ugu qeyba waa iga ogolaadeen hala tegi ma karti ilaa madaxweyne kusoo ogolaada madax oxfam baa markaa shaqa keenay madaxweyne intuu soo ogolaana dhowr bilee qaadanaya imanahi qaali inaan joogo inaan tegi ii sameeyo waqada hadduu ii soo celiyo feelka gashada lagaga suuqaa musuqmaasuqaa bata marka soo saxiix aan ku darayna ama shaqada dowladda iyo dadka o dhan waa laga carabaa shaqada dowladda baxsan ciidamadii baxsan ka mushaarka lagu siina iyo waxaa kala hormaraya maciishada nolosha magaalada askari mushaarkiisu kuma filo macalin kuma filo in yar oo madax ah oo maare iyo qof walbana waxay rabtay xel loo magacaabo aniga maare haddaan laga dhigi maare waa xasuustaa oo baalooyinka baalaha jidka lagu xirnaa shubka warshada dhul meel waa makiin bulakii tacmal maare waxuu yeelanaa buma baawulaa kuuse shidaa kharajyadii aa batay dowladda laga rabo ciidamada mushaarkooda la waayo waxay noqdeen inay iska boostaan wax kasta markay meel limit gaara dardarta hore oo jaamacada noo dhiso iskoolada dhisay waxaa ka muhiimsanaya in warshada la dhiso orientation la dhiso warshad kasta lagama fikirin waxaa laga hadlaya joogtay sustainability warshaddan waxay ku jiri kartaa kharashka galo xataa cala aqal iyada inay soo celiso iskabto warshad iskabi kartaa la waayo warshad kasta waa shaqeyne waa xooligeeda laakiin mushaarkeeda waa iska dhaqameed berdi cataga hadduu u baahato wasaaradda maalintaa la weydiinayo qorsheynta iyo lagu daro sanadka dambe laba toona naga hala oday marka dhibaatada timi taas kadibna marka dagaal haddana isku galo anagoo saas ina sama dagaal ina faraha la galo horta dubka ugu weyn gacanka meesha uu yimid kadib mushkila raacdayna maraykanaameena IMF iyo ayuuda world bank waxaa la lacagtaada qiimaheeda rida horta muslim kula ma gelina waa kusina gelinaas gad shaqaale oo wada bulshada gelin laysiiyay tii kale soo baxaysay in waxay tahay ku noqotay wax soo saarka beeraha marka waa gelina hadda ADC markii la soo gabo qaaraan waxa qorshe wuxuu ahaa beeraleyda in lagu celiyo waqtiga jiilaalka si qiimaha oo lagu baahan kasay ku wada ADC da bari waayo waxay noqotay wasiir ina ugu tagto hal hore inuu ku soo qoro sokorta xaafadaha gudada dowladda hoose agaasimo jooga tigi markaasuu ku leeyahay si uu musuqmaasuq hala siiyo laakiin dukaanka xaafadda ku yaal kiirimada kaalmiyihiin xorriyadda ganacsiga competitionka dadka wax ku tartamaan yaa laga quality fiicnaan wax soo saarka yaa laga badan sawba haddii la soo gaaray kadib kacaanku degaandiga ku socda oo markii dambe laga wada tigay ما شاء الله. I think في كل في عنا صوتي تعزز صحيح وحان إسلافيرين اللي قصوا بلا مكيد يكون بدل الخاطئ إلى اللي سنة كل رئيس وحي تقال على قصة من حق السياسة به مالية وحان ديو في وقت اللي كعادة سوى السعودية قولي لك قالك إدباتوين كي كنشر halka kusoo xirno qaybta koobaad ee barnaamijkeena siyaasadaha dhaqaalaha iyo maareynta maaliyadda waxaan aad ugu mahadcelinaynaa khibrada nagala qayb gashay oo aan rajeynayno dhalinyarada hadda joogta jiilka hadda jooga inuu aad uga faa'iidaysan doono wax badanna ay ka korsanayaan wixii ka horreeyey dalkan jidka uu soo maray waxaa la yidhaahdaa meelaad ka timid haddaadan aqoon meesha aad lahayd ma taqaanin marka waxay warkaan qayb ka noqonaysaa
waxaa lagu kordhisi doono insha allah mustaqbalka howlaha dhaqaalaha iyo siyaasadda maaliyadda laga qaban doono halkaas ayaan kusoo xirinaynaa